السلام عليكم وعشركي saddexaad iyo Adobe Reader-ka waxaan rabnaa cashirkan kanna inaan si fudud aan kusoo koobno qayb keyboard-ka ka hadlaysa ama functions aan isticmaalayno keyboard-ka iyo qayb ku saabsan iyaduna Adobe Reader-ka gudihiisa qaybta keyboard-ka ku saabsan keyboard-kaaga markaad u fiirsato waxa uu leeyahay home ayuu leeyahay waad ujeedaa home-ta waxa uu ku leeyahay qaybtan midigta ah ayuu ku leeyahay line-ka korka ugu xiga delete home end page up page down waad arkaysaa halka kor aad ka arkaysaa marka haddii aad taabato home haddii end hadda home ayuu joogaa page ugu horeeyay taagan yahay page 1 haddaad rabto handout-ka ama buugga ku furan page-ka u dambeeya inaad tagto halkii aad xaggan intaad saarto aad maanta dhan wadi lahayd waqtigu ka dhici lahaa waxaad sameynaysaa kaliya home waxaad taabanaysaa end oo aragta the last page buna keenay haddii aan end taabano home no isku xigaan home haddaan taabano 1 buu soo noqonayaa waxaad sameyn kartaa halkan waa kan cashirka hore ku sheegay haddii 545 aad ku qorto page-ka u dambeeyay ku geynaya laakiin intii aad wax qorqori lahayd waxa kaaga fiican adigoo home iyo end isticmaala marar badan ay ku anfacaysaa marka taas oo kalena sidoo kalena kuwan hadda waa ujeedaan falaadhahan midna kor ayay ujeedaan midna hoos falaadho marka hoos ujeedo pageska hoosta ka jira ayay ku soo wadaysaa kor haday ujeedana kor ay waxa weeye ku celinaysaa iyo page 1-ki marka saas ayaad isticmaali kartaa one page ayay boodaysaa markiiba one page ayay boodaysaa wada jeeda markiiba one page ayay boodaysaa intaas waxaan ku daraynaa haddii qaybtan aan aadno view-ga markaan soo furano waxaan tegaynaa rotate view waxa weeye waxa laga yaabaa buugaagta qaar ayagoo sidan oo kale oo wareegsan sawiraanta telefoonada waad ku aragteen iyagoo la wareejiyo oo mar right mar left loo wareejiyo marba dhinac loo wareejiyo waxa laga yaabaa buugaad aqriyayso ama handout-kaad aqriyayso inuu sidan oo kale u jeedo haddii uu kaaga jeedo waa inaad garan karto sideed u furan karaysaa sideed aad straight uga dhigi kartaa ama wax toosan aad uga dhigi karaysaa view-ga tagaysaa and then rotate view-ga tagaysaa maadaama uu hadda uu wareegsan yahay tan hoose ayaa tagaysaa shortcut ayaa leedahay waa shift plus control plus minus tan kalena waa maxay shift plus control plus waxaad isticmaalaysaa marka keyboard-ka ayaad isticmaalaysaa shift-da ayaad isticmaalaysaa keyboard ku taala iyadoo sideeda ay shift ku qoran tahay oo calaamadii arrow ay raacsan tahay kadib waxaad taabanaysaa control-ka ayaa taaban shift-daad nabaysaa kadibna adoo haya baad control-ka taabanaysaa adoo labadaas la haya ba haddana waxaad taabanaysaa minus ama plus labada midkood ayaa taabanaysaa haddii aan sidiisa ku soo celino waa kaas marka waa aad muhiim u yahay buugaag badan oo rogan ayaad arkaysaa ina soo rogata la rabaa view-ga tagto rotate-ka tagto waa tii telefoonka oo kale almost wax saas u sii adag maaha cashirkan xiga intaan ku kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.